agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Axmed Cabdi Xergeeye oo safar shaqo ku jooga magaalada Laascaanood ayaa kormeer ku tagay cusbitaalka guud ee magaalada Laascaanood isagoo kulan la qaatay mas'uuliyiinta wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo mas'uuliyiinta cusbitaalka Laascaanood sidoo kale agaasimaha guud oo ay weheliyaan maamulka gobolka Sool iyo ka degmada Laascaanood ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay dhakhtarka cusub ee loo dhisi doono dhimirka oo baahi weyn loo qabay akaasi oo laga hirgelin doono cusbitaalka Laascaanood waxaana munaasabadii lagu dhagax dhigay goobjoog ahaa barasaabka gobolka Sool maayirka degmada Laascaanood isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka agaasimaha cusbitaalka Laascaanood iyo mas'uuliyiin kale ugu horeyntiina waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha cusbitaalka Laascaanood Fahiima Koosafaara iyo isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka Dr. Maxamuud Xaaji Khalifa oo muuqda wasaaradda dadaalkeedii oo maanta halkan la dhagax dhigayo qaybtii mentalka in badan baa magaaladu u baahnayd qaybtaasi waa qayb aad iyo aad baahi weyn loo qabo waxaad arkaysaa dad badan oo waalan oo ku daafadaha iyo laamiyada maraya oo aad moodo dadkoodii inayna haysan ama dadkoodii haystaan meel ay keenaan oo laga daaweeyo ay waayeen waxaa maanta farxad noo ah iyadoo loo dhagax dhigayo oo agaasimuhu dhagax dhigayo meeshii mentalka oo haddii aan laydmo dhaqso inoogu bilaabmaya oo haddii aan laydmo dadka waalida oo dhan loogu shaqaynayo waxaan u malaynayaa markaa halkaas ay dhisanto dadkii badnaayee aan ogaaye miyiyada iyo tuuliyada lagu hayay inay imaan doonaan ka faa'iidaysan doonaan waa mashruuc aan sugaynay aad iyo aad baan wasaaradda ugu hambalyaynaynaa wasiirka iyo agaasimaha guudba baahida gaarka qaba ee dhimirka runtii waa baahi ka jirtay gobolka Sool waxaan leeyahay wasaaradda horumarinta caafimaadka wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo dhammaan wasaaradda caafimaadka runtii gobolka Sool waxa aynu gaadhnay baahi waxaynu taabanay runtii jirtay aanu qorshaha ku hayno si dhaqso ayaa loo dhisayaa xaruntan tiimkii ka shaqayn lahaa ka howlgali lahaana loo diyaarinayaa oo ay haddeer diyaar yihiin dhankooda waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Laascaanood iyo barasaabka gobolka Sool iyagoona ku dheeraaday ahmiyadda dhismahan u leeyahay dadka la xanuunsan xanuunka dhimirka waxaan uga mahadnaqayaa wasaaradda caafimaadka iyo agaasimaheeda guudba inaynu maanta dhagax dhigayno cusbitaalkii dhimirka oo ka dhinnaa cusbitaalka weyn ee degmada Laascaanood ama gobolka Sool oo ka dhinnaa degmada Laascaanood oo aad iyo aad aynu baahi weyn ugu qabnay dadku u cadilnaa aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqayaa agaasime adiga iyo wasiirka iyo xukuumadda dhaxaba boqolkiiba boqol baan idinkaga mahadnaqaynaa inta haddaan ka gudbo maanta cusbitaalka degmada Laascaanood waxaan filayaa waxyaalo aad iyo aad u badan inay qabsoomeen innagoo isku tashannay xukuumad iyo shacabba waa maalin weyn waxaynu maanta isugu nimid sida aad indhihiina ku aragtaan oo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool laga dhex dhigayaa cusbitaalkii dhimirka cusbitaalkaas oo ognahay in baahi badan loo qabay inay dadkaasi dadyihiin nugul runtii dhibaatada ugu badan ee nolosha aadamaha soo wajahdaana waa dadka ay soo wajahdo wax walba iyaga u nugul marka maanta inay daryeel heli doonaan meel caafimaad u soo doontaan daaweyn lagu siiyo lagula taliyo noloshoodana wax laga qabto waa wax ilaahay loogu mahadnaqo waxaan aad ugu mahadcelinayaa runtii wasaaradda horumarinta caafimaadka agaasimaha iyo wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo dhammaan madaxda iyo shaqaalaha iyo waaxdanba runtii dadweynahaana waxaan leeyahay laga faa'iideysto ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Dr. Axmed Cabdi Xergeeye isagoona ku dheeraaday ahmiyadda cusbitaalkan isagoona sheegay in ay wasaaradda caafimaadku u dhisi doonto dharka dhimirka ka xanuunsan u dhagax dhigno qaybtii dhimirka ee uu lahaa cusbitaalkan ee Laascaanood sida aad ogtiin cusbitaalka Laascaanood wuxuu ka mid yahay cusbitaalada ugu ballaadhan ee ka jira Jamhuuriyadda Soomaaliland markay noqoto xagga infrastructure-ka iyo xagga adeegaba taasi dhimirka si degdeg looga howlgalo inta uu socdo dhismaha qaybtan dhimirku waxa la sii bilaabi doonaa outpatient-kii qaybta dhimirka oo dhakhtar iyo neeras si degdeg loo soo tababari doono muddo gaaban markay tababarka soo qaataana ay bilaabi doonaan inay hawshii sii bilaabaan inta uu dhismuhu socdo marka waxa la sameyn doonaa in xanuunada dhimirka ee markii hore meel lagu daaweeyay aan lahayn imiga la heli doono
meel lagu daaweeyo oo outpatient ahaan loo sii daaweyn doono outreach la samayn doono oo guryaha lagu soo booqan doono dadka meelaha kale qof lagu tilmaamo la soo eegi doono dadkaana la siin doono dawo iyo baadhitaan bilaasha oo ay bixinayso qaranka amba jamhuuriyadda Soomaaliland aad ayaan u hambalyaynayaa maamulka gobolka maayarka ee maamulka cusbitaalka iyo maamulka gobolka caafimaadka siday u wada shaqaynayaan iyo sida loogu shaqaynayo dadka waxaanu joognaa Laascaanood maanta oo nabada liibaan qaran warbaahinta qaranka Soomaaliland Laascaanood